هيا متانكيغا عاشقة محمد علي فرح دماتيبا welcome on board هورو صعدة كلها الليا سودوال أنا جوا دي جي سوبر متان وانا ولا صعدان نستحوينه welcome هيا لما تبي سولو هذا ماما شواهر بارقب سولو لينا هي سبيشل نايت عاوز سبيشل نايت هرو صعدة صومالي ويني هرو صعدة سوى اللي هذا صومالي هوري صعدة soo dhawaada dhammaantiinba hore u socda waxaan leenahay dhammaantiinba habeen wanaagsan kusoo dhawaadana Instagram-ka DJ Suber plus friends iyo saaxiibkii qaaliga oo ilaa iyo aan bilaabay wala joognay garabkaygii midig mataan dadka ku cusub Instagram live-ka ayaan rabaa inaan ka daba geeyo sababta Instagram live-ka u furnay waxa weeye wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in bulshadii Soomaalidu meel kasta ay ku sugan tahay iyo shaqo kasta ay qabtaan ama siyaasiyiinta ama dhanka entertainment-ka dheh ama dhanka sports-ka dheh ama dhanka shaqada dheh ee professional-ka inay meel ku kulmaan fikirkana mataan ayaa iska lahaa oo Suero use your phone book phone-book-kaagu awood buu leeyahay dadka isku keen marka that's the reason kusoo wala dhawaada waxaan rabnaa horta inaan ka bilowno inaan u mahad celino martidii xalay dhammaantoodba dhammaantii xalay wixii nagu la jiro dhan ayaan rabnaa Safwan Halaac soo dhawow saaxiib soo dhawow kusoo dhawow saaxiibkii qaaliga Safwan waan wanaagsan Safwan week laba week hore ma filas Safwan thank you Safwan walaalo caawa programku shideen yahay waxaan rabaa number 1 oo inaan aad iyo aad aan ugu soo dhaweeyo maamo Jawaahir Barqab haweenka gobolka Banaadir oo dhan maamada matasha iyo mas'uulna ka ah waxaan rabaa ya kale saaxiibkii qaaliga Xasan idinku laakiin oo taqaanaan Armanta oo London inaga la soo hadlay anagu saacad tubanay idinkuna wuxuu jiray shiilo culay share buu jiray laakiin Instagram-ka share lama oran karo wax la oran karaa lafta ku yaacaya waxa kale aan soo casumay oo marti inoo ah bilan oo ka hadli doonto xuquuq insaanka haweenka iyo kufsiga ciyaalka yaryarna waa professional-keeda waana shaqadeeda ayay ka hadli doontaa saaxiibkii qaaliga all the way from Göteborg magaaladaydan ordiyahanka qaranka Sweden oo ciyaara Suldaan Xasan saaxiibkii qaaliga oo aanu Muqdisho wala joognay saaxiibkii Abubakar Cawaale waa ninka qaadkii ku guuleystay inuu wato Yurub uu ka xiro isagana ka wareysan doono say joogu ugu socdo Soomaaliya ilaa hadda qaadada dambe lagu koormeesha Abubakar Cawaale saaxiib aad iyo aad baan ku salaam welcome iyo gabadheenu ku wala faano shanta Soomaalida hadii aynu wala nahay senatarooyinka oo Washington inagala soo hadli doonta Ilhaan Umar marti sharafteeda dhamaantan bal lafta saas wala raacay it's going to be a great night waxana rajeenaya maanta iyo shalay aniga Ilhaan waxa waqtiyada Minnesota joogtay Minnesota waxay tahay 5 PM baan filaya saakana text base qorto waxay ugu tiri DC Washington baa jooga Suero waqtigu same ba I hope in I had the same time on school night reer Washington haday ugu jirtaan waa 5 PM samaha dhankiina ha soo qora Ilhaan xaga sina kala soo hadli doonta haduu ay ka dhigo marka waxaan leenahay hore u socda ummadda Soomaalida meel kasta joogtaan spread positivity child respect iyo walaal mas'uuliin badan bana arka xaq caawa ma sha Allah ma soo dhawaada
عمر يا هوري صعد المرو قبل كاجي من الصوت ولا لا لو تبدقيا waxaanu soo dhaweynaa martideeda ugu horeysa soo dhaweynaa walaasha qaaliga gabadha ku wada faano ila soo dhaweeya Ilhaan Cumar Ilhaan Cumar hey Ilhaan Cumar وبسطة فوز كسكة سنتر إلهام عمر لا تنسى المطارو inaan aad iyo aad walaalo kaaga mahad celiyo sida sharaftay aad iga yeeshay inaan nala soo qayb qaadatid Instagram section kan shayga qaaliga labada shay qaaliga bini aadanka la siin karo waxa weeye kalsoonida iyo waqtiga labadaba waan kaaga mahad celinayaa horta ku mudan waan aadan ugu faraxsanahay in aan visually kuwada kulanno aniga huge fan aan ahay marka aadan ugu faraxsanahay caawi inaan wada sheekaysano walaalo adam hadda iska leh Washington laga dabagay oo xaaladda Washington iyo weatherka iyo maanta galabta say ahayd Washington waa okay and saad u ogtahay hadde pandemic aan ku jirnaa so shaqadeena kastoo way culusaatay and waxaan isku dayoynaa sidii aan uga hortagi lahayn and pandemiga laakiin also waxaa dib weyn dadka ku soo kordhay oo dhinaca dhaqaalaha marka waxaan ka shaqaynaynay programmo dadka caawinayo and marka negotiations aan weli ku jirnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano oo aan hadda dadka masaakiimiinta aan matalno aan ugu faa'iideyno waqtiga yar aan haysano sidii aan ugu dadaali lahayn. That's beautiful. anaka Sweden anaka lama dareemayaba inaanu lockdown oo leenahay wax iskuuladii way noo furan yihiin 50 people baa naloo ogolaaday so we like why not I know hadde population yar aad haysatiin waxaan xasuustaa ilaahay ka taa 10 million baa waxa 5 million hadda waa Minnesota kaliya intay tahay waxaan xasuustaa 2005 waxaan tagay Stockholm iyo Göteborg magaaladayda caasimaduna waa Stockholm. How did you like it? Ma ka heshay? aadaan uga helay markaasay wiilkayga aan uurkiisaan lahay soo cunugayga labaad 2005 ahayd ingiriiskan soo maray hadda ingiriiska oo qayle iyo buuq iyo madaxa dhan igu soo xanuunay reer UK waa maqlasan waxaan tagay meel oo dadkii oo dhan hadda ay iska qawaabsan yihiin oo firefighter oo qaylinay iyo siren oo police oo yeeray iyo ambulance wax dhan aan la maqlaynin dul iska wada cagaaran dadkii ay iska maskiimiin yihiin
marka ani Minnesota reer Minnesota aan ahay dadka badankood waa Scandinavian waa Swedish Norwegian ama Denmark ay ka imaadeen ama Finland so marka dadka noocaas ee iska qabooban hade waan la qabsanay inta Minnesota marka laakiin magaalo capital oo saas quiet u weligay waa tagay isma dhahaynin marka waad nasiib weyn aad leedihiin waxaan xasuustaa familkayga hooyo dhinaceeda oo tiro badan aad degan Göteborg abtiyaashey ayay ilaaha u naxariisto oo markaas nooleed dhammaantood family tiro badan waaye waxaan aadnay vacation wax oo lagu yaqaano waaye dadka reer Sweden in ay family ahaan vacation wada qaataan oo cabinyaalo ay ijaartaan marka I think maybe traditionkaasi in Minnesota oo cabinska ee meeshaas ay ka keensadeen marka aad lucky u tihiin meesha aad joogtiin laakiin isku hal maaha hadee America waxaan nahay 360 or more million people marka lockdown is a different situation it is wallahi waxaan rabay xagga waxa ka daawanaya dhalinyaro aad iyo aad u badan waxaan xasuustaa shalay markaan commercialka introga videoga aan soo dhigay hablihii oo dhan waxaadan suwaaro big supporter baan u nahay taageeraan u nahay fans baan u nahay walaalo maxaan rabnay inaanu noqono politician ilhaan ma maqlaysaa connection kaaga kastoo waxaysan annagu kuma maqalnay ilhaan stuck don't worry annagu isma dhiibno commentadiina waan xidhay ilhaan way soo celinaynaa isma dhiibno annagu nacimo jokerna sanay ku dhacday sanad u egtiin baan ugu dirin nacimo joker ilhaan what a sweet girl wallahi way ku soo celinaa ilhaan siratiradii dunida oo dhan midi dulada loo xiray uugta gabayga midiga ku sharaxay socodkaysiday alla berka aydakuga qoratu isma dhiibno amaku isma dhiibno tiibnaba give up habeen dhawo talaad ilhaan waxaan ugula jirtay nacimo joker markaasay say kaadida nooga dhamaysa aan u qoslaynay ayaa waxay tidhi warsan iga daaya annagu waan fahmi weynay showis bay noqotay frozen aan noqoteen waxaan marayay ilhaan xabiibti waxaan marayay hablaha dhalinyaro hadda waxaan ku daawanaya hablihii macaawalaalaha iga yaryara oo role model aan u tahay hablaha yaryar maxaa odhan lahayd ee raba footstepkaaga inay raacaan waxaan ku dhihi lahay is-aamina qofka markii uu rabo meel in uu gaaro ama uu hami leeyahay waxaa koo muhiim ah in uu asiga is-aamino in hamigaasiiti uu fulin karo and then kabacdi waxaa muhiim ah in dadka oo aad la kulmi doontid ay isku jir noqon doonaan dad ku dhahayo waxaanay timo ku suurtagelaayo iyo dad ku dhahayo hore u soco inaad kala baratid qofkii oo daacad ay ka tahay iyo qofkii aynan ka ahayn aad suubsatid saaxiibo iyo circle oo fiican oo adiga ku fududaynayo sidii aad ku noqotid qof oo dhiirigelin leh oo meeshii uu gaari karo politics waa sport ay dhahaan it's survival of the fittest anybody oo sports ciyaaro wuu fahmi karaa and truly it's about practice right and crafting yourself into being the best that you can be and then politics can I think dumarka way u adag tahay because dadka badanaa ma aaminsana inaanaka leaders aan noqon karno inaan wax maamuli karno
in guriga maahine meel kaleete aan kasoo bixi karno badanaa waxaad arkaysaa ragga markii ay dhahaan siyaasiyaa noqonaya qof oo weydiinaya male maxaa taqaanaa maxaa og tahay maxaa fahmi kartaa and gabar laakiin you know everybody wuxuu rabaa in uu boqol wax weydiiyo steps uu marsiiyo and then nimanka also expectationadii kaleet way ka kala yaraanayaan waxaa lagu leeyahay walaalka hamiyuu leeyahay waxaan u fududeey kan u suubi kaas u suubi gabadha waxaa laga rabaa iyada wixii oo dhan inay suubiso and then hamigeedina iyada inay gaarto waxbarashada taas waaye wax kasta gabar ay raadsanayso wixii shaqooyinkii dumar ahaan loogu talagalay iyo wixii kaleet ay rabtay waaye ragga jidadka looga dhaqaajinayaa wax kastoo obstacle ah waa laga leexinayaa so you know I think badanaa dumar haddaan nahay laba choice aan haysanaa soo maaha inaan hamigeena aan raacno oo wixii aan rabno aan noqono ama in aan normal caadi iska dhigno oo ilmo aan korsano gurigeena aan joogno qof xaaskiisa aan noqono marka traditionally way nagu adag tahay maskax ahaan in haweeney oo ilmo haysato guri maamulanayso guriga banaankiisana hami ay ka yeelato hamigeedana uu yahay hadde hami weyn oo rabto wax weyn inay ay taariikh meel fiican ay ka gasho marka challenge wuu weyn yahay inaadan waxaas dhag u dhigin oo aad iska fahantid like that's just tradition and you just bulldoze you go for it and you know for me life it's been that way I had children very very young gabadhayda ugu weyn hadda waa almost an adult and I also have a little baby to the bajir and you know like life just continues you know you just figure out and hore usoco dadka say dhahaan oo kale you just continue and like dadka waxa ay ku dhahayaan qofkii ku dhahayo shaqadan adiga ma lagugu talagelin booskaas ma gaari kartid jagadaas ma heli kartid waxaas dhan dhag ha u dhigin because I mean dad anoo kaleetaa jiro oo I shouldn't be meeshaan maanta aan joogo but I'm here because I believed in myself and everyone else did. That's beautiful wallahi. Laba wax baan ka qaatay ilhaanay waxaan ka qaatay believe in yourself you have a good circle good real friends يعني dad kalsooni aad ku qabtay. That's beautiful advice. I mean it's timely right I think dadka badanaa waxa qofka oo dadka circle-kaaga ku jiro you think haddii aad iyaga ka tagtid wax ma ku suurtagalaayo and sometimes you have to let things go in order to create more space for others to come in who are going to help you be the best person that you can be. That's beautiful wallah. Ta kale aan ilhaanay walaalaan rabeenaan ku weydiiyana what inspires you yani what motivates you hadda the shanta Soomaaliya oo dhan baa proud of you yani hadda caawa xagan mas'uuliyiintii baa ku jira wasiiro xildhibaaniin dadkii magac iyo sharaf ku lahaa dhan baxdi fanka sportiska Soomaaliya oo dhan baa matasha maanta difficult hard times no waa haysataa here and there maxaa motivates you adiga maxaa ku motivate gareeya you inspires you every day to go to the work I know adiga inaad iga rooneeda u maleynayo Somali English challenge aan wada haysto labadeenaba I'm not in your level yet level that you might get isticmaashino aan ka xado adigina ya ilaahay I think like motivation meel kasto uu yaalaa right haddii aad raadsanaysid wax kasto wuxuu ku noqon karaa motivation aniga I think mostly waxaan motivated aan ka ahay like ciyaalkayga I know yaraanteydii waxyaalo badan possible maynan ii ahayn because environmentigayga different ahayd and I motivated ciyaalkayga inuu every single thing possible uu ahaado so I want to create a different environment than the one aniga aan kusoo koray culturally politically religiously and family wise you know I think opportunities are limited when you don't have a good external environment to exist in
Exactly. And oftentimes we don't think about that external environment. You know, we forget that there are so many challenges, there's so many obstacles that can be removed if there was a societal growth. Okay, wow. And so I think ciyaalkayga waxaan politics ugu jiraa for them and other ciyaalka oo iyagoo kaleeta la mid ah. And so I can create, you know, social, economic, and environmental equality, so they can exist in a better environment than me. I think badana dhibaatooyinka badan aan la kulmo really is out of that motivation, because ma aaminsani like waqti badan inaan haysano, right? waxaan aaminsanahay waqtigeena aad u yar yahay to be impactful. And so dadka badanaa waxay aaminsan yihiin like 10 sano iska sug 20 sano iska sug and then eventually you'll get somewhere. And I think, you know, like ciyaalkayga time ma haystaan, ciyaalka kale adduunyada ku nool time ma haystaan, so we do what we can today, as much as we can, so there's a better environment for the generation, you know? Yeah. waan ogahay inaan waqti hayn saddexdeedii su'aalood back to back. Favorite food? Favorite food, bariisi hilib ari. Very Somali that way. Most la'aan, like, I'm not a fan of most. Here we go. A Somali household without banana. Maaha Somali. Ciyaalkayga actually, like, Somali DNA was very interesting because wax kasta waxay rabaan Somali inay most inay ku cunaan. I don't know meel ay ka keeneen because I need most to cuni. That's beautiful, so they're very strong Somali DNA. That's a better wallah. Hey, McDonald's, I'm a Burger King. McDonald's. Fries score is excellent. Mercedes, I'm a BMW. None. I don't like flashy things. gaariyaasha turbalka waa ka soo horjeedaa obviously. Very simple girl. waan ogolahay taasda. iyo baan rabay walaalo su-aashan cid kastoo aan ku soo xidhaa maxaad uga tegaysaa fariin kunamaanka kuna hadda ku daawanaya iyo kuwa gadaalba kaa daawan doonaa oo fursad bay hadda haystaan inay ku walaarkaan dhammaantoodba? I mean, laba fariin aan uga tegi lahay mid ku saabsan pandemiganeyd hadda aan ku joogno, you know, dad waxaa jiro oo nasiib leh adiga meesha joogtid oo kaleeta joogo oo dhaqdhaqaaqooda uusan ka xayirmin oo noloshoodii sidii caadiga u wadan lahaayeen, wadamo dad aqli ay leeyihiin ay rangaraynoyaan ama madaxweyne ay u yihiin ku nool, and then dad anagoo kaleeta ah oo you know, madaxweyne aan science iyo waxba aanan aaminsanayn uu madaxweyne u yahay. And I want dadka labada dhinacba ay ku nool yihiin in mid ay xasuustaan in anaga oo dhan hal adduunya aan ku wada nool nahay, right? And kulligeen connected aan nahay, so adiga whatever maanta aad haysatid qof walaalka ayaanan haysanin, and qof walaalka maanta wuxuu haysto inaan adiga haysanaa laga yaabaa, and that's okay. And the best thing we can do is wish the best for everyone else. In aan ku fikirno like globally, maxaan dadka ku taakulayn karnaa, maxaan qaban karnaa, and sen qof kaleete booskiisa isku dhigi karnaa oo aan uga fikiri karnaa dhibaatada haysato ama wixii, you know, situationka uu ku nool yahay. And I think that makes us a better global citizen. If we're worried about others, we become better global citizens. And then I think secondly, because waxaa tiri dhalinyaro yaryar oo badan aan na fiirsanayaan, and I think this is just message ahaan Soomaalida, waxaan badanaa ilownaa Soomaali haddii aan nahay in kulligeena aan hal family and qof kasta oo Soomaali ah wixii dheefkana waa isla sheer garaynaa, dhibaatadana waa isla sheer garaynaa. So maanta Ilhaan Cumar haddii ay tahay congresswoman, adduunyada oo dhan waxay qof Soomaali kasta ay arkaan, waxaa laga yaabaa inay jidka joojiyaan ay dhahaan Ilhaan ma taqaanaa, Ilhaan congresswoman waa.
qof walaalkeen maanta haddii dhibaato uu geysto ama uu dembi galo qof kasta oo Soomaali ah oo laamiga maraayo waa la joojinayaa waxaa la leeyahay ninkaasiti oo dadka dilay oo magaciisa suubiyo Soomaaliga ama taqaanaa kaas mistaqaani soo marka haddii aan dhibki iyo dheeftibo aan isla wada wadaagno inaan xasuusnaano right in annaki aan isku noqono family oo isku safeguard gareeyo right oo iyagii is og oo dareensan aniga maanta wax kasta aan meel kasta aan gaaro walaalkii xumaantiisa ima dhaafayso aan dhibaato kasta aan leeyahay walaalkii sharaftiisa aan ku xiisan karaa so markii aan wadankeena ka fikirayno markii aan ka fikirayno dadkeenan diasporada ku nool markii aan ka fikirayno walaalaheena nasiibka leh oo anigoo kaleete meel fog gaaray ama wax noqday markii aan ka fikirayno dadkeena dhibaataysan oo ama xabsi ku jiro ama daroogo iyo addiction la struggle garaynayo in aan xasuusnaano qof Soomaali xumaantiisa markii aan sheegno in kulligeen xumaanteena aan sheegno Soomaali wanaagiisa markaan sheegno kulligeen wanaageena inaan sheegino aan uga fikirno truly because ani family weyn aan ka imaaday and like family is complicated but ultimately we're family so like family is very complicated and wixii anaka family ahaanteena aan xasuusnaano like to wish each other the best and to ultimately help one another when we are struggling. I see dhalinyaro badan oo Soomaali oo addiction la struggle garaynayo and dadka badana ay si xun uga hadlayaan ama ay rafaadinayaan ama ay dhibaataynayaan ama you'll see like that mental illness and la struggle garaynayo hooyooyin masaakiimiin ciyaal yar yar kaligood korinayo dadka xumaantoodii ay ka shaqaynayaan meeshay dhihi lahayn qofkan familkeygii waay walaashii oo kaleeta aan uga fikiro walaalkey oo kaleeta aan uga fikiro maxaan ku suubin lahay maanta haddii walaalkey ahaan lahay cabdigaasay tilaamiga taagan maxaan ku suubin lahay haddii caasho oo 3 ilmood haysato ay walaashii ahaan lahayd and saas aan iskugu take care garayno because adduunyada family ahaan ay noo aragtaa adduunyada waxay noo taqaanaa in aan kana iswada dhaqaano you can't imagine every single where I go dadku way istaajinayaan and they're like oh we'll New York dagan ama ko Sweden aan ku soo arkay you know somebody like Finland there's some guy in politics Mr. Kani waxay u maleeyaan kulligeena in Rolodex meel aan ku haysano oo check aan suubinoyno and so here wuxuu suubiye kana and caas intay martay cali intuu yeelay ay dadka like truly that's how they think you know because familka waa okay so you know walaasha waxay ku soo kacday iyo walaalkaas ku seexday they assume anaka that way in our function galena accountability in our for one another and so to think that way like to also do have accountability to think so walaalkiisaan ku caawinaa walaashiisaan ku caawinaa and I think that's ultimately Somali ahaan saan ku guuleysanayno Somali ahaan aan meel fiican ku gaarayno Somali ahaan saan anaka isku aragno si adduunyada noogu aragto you know that was amazing wallahi waxa ka dambaysa oo maama Tawaahir Barqab oo gudoomiyaha haweenka Muqdisho iyo gobolka oo dhan oo kugu xigta hadda maxaa iyadana fari lahayd ama su'aal si weydiin lahayd I know shaqadooda inay aad iyo aad ay u adag tahay you know Soomaali markasta aan ka hadlo waxaan ka hadlaa inta dhibaatooyin ay soo martay iyo progresskii ay suubisay so Somalia badana you know dadku waxay ka fikiraan like xumaanteeda kaliyo and I think it's important inaan xasuusano meel fog inaan ka imaanay and anta saytina alhamdulillah aan dhahno you know like dada ka soo shaqeeyay dada joogo dada noloshooda risk garay every single day ani waan tagay 2 mar dad waan soo baxay dada jiro oo joogo oo shaqadaas ay qabto dayayo progress you know whatever you can say about them still they're putting their lives at risk and doing the work and I think dadka oo Jawaahir oo kaleete oo shaqada ka shaqeynaya shaqooyinka ku saabsan sidee society ay uga shaqeyn lahayd dumarka iyo gabdhaha nolol fiican in ay ku yeeshaan wadan ay ka yihiin majority oo ayna yihiin dadka ugu dhibaataysan waa shaqo muhiim ah marka Ramadan Mubarak aan tahay ciid wanaagsan and Ilaahay ha ku fududeeyo and Ilaahay ha ku mahad celiyo shaqada ahaysan annaguna waxaan ku leenahay anoo ku hadlayo kuna maanka qof
walaalkay mataan waxaanu ku leenahay Ramadan Mubarak. We love you, we support you. Thank you for coming by Ilhan walaalo. Love you guys. Bye. Bye. Thank you. Wow, 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 wow. Ilhan Umar. Yeah. Ilhan Umar. Wow, wow. That was amazing. Ilhan, thank you, walaalo. Hey, that was my first guest. Hadda waxaan ku soo dhaweynayaa maamada ugu qaalisan maama Jawaahir Baarqab oo nagala soo hadli doonta magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho Cadday Lina Room Maxamed Cadday abtigii baan waan ku aragnaa soo dhawow haybad xaggaa ku leedihiin dhulkiinii hooyo Soomaaliya Mama Jawaahir coming up. Celebrate positivity. Mama Jawaahir Baarqab coming up. waxaan leeyahay farxad ku noolaada. ما شاء الله وعليكم السلام دمانتين waanu kaa qaadnay hooyo ma fiican tahay Mama Jawaahir مام جوهر هذا في عنتها هي مقالدي مقدشة وهذا قصة سلاماية طبعا waxaan rabaa qof walba xilliga iyo waqtiga uu joogo inaan ku salaamo oo niraahdo aniga iyo mataan basharaf bay noo tahay wata inaad iga aqbashay waxagana waxaan ka mahad celinayaa gudoomiyaha warka nabadda Saynab Xabsade oo ka soo shaqeysay waa gabadhii ugu horeysayna waxa iyadu furtana ma sha Allah way hilgalaan Saynab xaggan ka salaamnay oo maanta waxaan ka bilaabanaa meeshii ay Ilhan Umar way ku daawanaysaa oo ay kaga tagtay oo ahayd shaqada aad haysaan maanta oo dhan ma maqlaysa maamo وعن شقada aanayna yes haweenka waxaan ogahay ciyaal badan oo agooma oo anigu life marxaati ahaa ciyaal badan oo la soo tuuray oo gurigaagii geysay ilaahay ajar ha ka siiyo iyo haweenka maanta shaqada haysan la qaybsan kartaa xaggan waxa ku daawanaya in kunomaanka ku ni mas'uuliyiintii meel kasta ka soo wada jeedana maxaa oran leedahay hooyo dhamaan horta waan salaamayaa si wanaagsan oo runtii waxay la tahay dadka Soomaaliyeed barnaamijkan waa wacyigelin oo shaqada aan hayno ay qayb ka tahay DJ Subeer adiga iyo teamkaaga waxa tiin samafalayaal oo waxa tahay kuwa hadda aniga aan hayay lacaga kuwa u soo diray adoo magaalada jooga ayaa lacag laga keenay Yurub aan gaarsiinaynay dabcan Soomaalida waxay u baahan tahay inay iscaawido waxaan u baahanahay in anagu aan istaakulayno shaqooyinka aan hayno waa shaqooyin adag waa dareemi kartaa wadan burburay dadkiisu isdileen kala tageen haddana dib loo yagleelay marxalad adag lagu shaqeynayo dabcan dalka dad way ka shaqaystaan oo ayaga shaqaysta dadna dalka u shaqeeyaan oo waa dadka xilligan oo kale u soo jeeda volunteer ku shaqeynaya dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan anagu waxaan nahay haween waxaan nahay birmageydo waxaan nahay kuwa aad u jilicsan mar walbaba waxaan dib u jaleecinaa noloshii hore aan ka nimid waxa inoo muuqanaya marxaladii adkayd ee qaraareyd maaragtay burburkii 30 sano aan ka dhaxalnay nabaday inaan aadno maaragtay dabcan in badan oo Yurub hadda joogto oo maaragtay anigu reer London aan ahay Ilhan markay ka sheekeynaysana waan dareemayay dabcan marka armaanta iyo abuukar maaragtay qaadka inuu joojiyo oo dabcan anu waxaan deganaa magaalada East London oo ay aad u adkaydo runtii dadka ugu badan ee waliba simaanada ay ku noolaayeen marka waxaan aaminsanahay inta badan dadku waxay dhihi jireen waa Rio oo ma joojin karo laakiin anu waxaan ahaa dadka supportiga u ah maadaama family problem badan aan ogaa habkaan u xalinayno oo qaadka u sababay marka abuukar waa ku mahadsan yahay waxaan rajaynayaa one day Soomaaliya inuu ku guuleysto lacagta jaadka Nairobi uu loo sii wado inaan ku bedelano wax badan oo dalkeena aan dib ugu qabsano oo beeraha aan ilaano
bal beeraha salarka iyo qudaarta iyo tufaaxa iyo appulka iyo waxyaabahaasa cuneen raggaan leenahay ku bedesho abuukar ha noolaadaan leeyahay markaa usoo laabto waxaa jira waxa la yidhaahdo hadda xanuun adduunyada saameeyo covid-19 dabcan nolosha magaalada markaa fiirisid haween ahaan gabdhihii jaadka iibinayey gabdhihii haywareerinta iibinayey gabdhihii maxaan ku idhahdaaye jaariyadaha ahaa gabdhihii shaha karinayey hooyadii kowda habeennimo caanaha 5 liitar intay caawa kowda la fadhiday intaba saameynay ku samaysay waa dareen kartaa marka hooyada Soomaaliyeed akoon male akoonkeen waa ubadkeena dhaqaale meel gaaro ma yaalaan assurance ay ku jirto male oo markii dab hadduu kaco ay ka gubato hantida loo soo celin maayo oo waa iyadii ayaa waxay noqonay qof daymaysan oo marka qaarkood ayagoo depression oo waxaad arkaysaa markii dhaqaalihii lacagtii dharka intay dad siiso amaaydo lacagta ka soo bixi weyda caqabaday la kulmaan anigu marka rag iyo dumarba shaqooyinka aan qabto oo adigu marqaatiga ka tahay waa shaqooyin aad u adag oo aad u xanuun badan walow marka qaarkood aan israado ma iska resign garaydaa ma iskaga tagtaa laakiin haddana waxaan isweydiiyaa dhexdayda ayaa waxaa jooga juriyaal badan oo jaaj garaynayo ileh may markuu ku dhufto ugu yiraahdo mid dhaqaaq midna wuu ii diidaa waayo qalbiga hooyada Soomaaliyeed waa mid naxariis ka samaysan dumarka Soomaaliyeed dabcan aadan u daalanahay xilligii nasashada xilligii abaalgudka xilligii maaragtay waxaan ku jirnaa anagu aan guryaheena ku noolaan lahayn laakiin maysa dhicine barakac iyo dhibaato ay nagu dhacay caruuraha markaa usoo laabto hooyadu marxaladaasay ku jirtaa waxaan arkay caruuro hooyo intay ilmihii waxay siisay markay weyd isku dayday inay tawleedka ku rido musqusha ilmo yar oo 2 bilood jira waxyaabihii ugu xanuunka badnaa waxaa iigu yaab badnaa ayana aabe ilmihii markuu wuxuu siiyey garan waayey ilmihii ugu yaraa intuu qaada badda inuu damca inuu raaciyo maantay xarunta kusoo booqanuu joogaa waa ilmaha hadduu ugu bato 5 years old marka marxaladda duruufta qofka markaan waxba haysanin ilaahay dadka waxba uma waayin ilaahay dadkana waxba maaragtay waan daawanaya waxaa u baahan inaan wax hoos u fiirino oo inta badan anigu aan dul istaaga waxay tahay agoomaha hooyada gablanka ah hooyada dariiqa xaqaysa iyo kuwa maaragtay danaha maaragtay markaa fiirisid aan dabkaba shidan karin waxaa inta badan la fokus gareeyaa barakacayaasha wax la yiraahdo oo ah dadka banaanka geedaha hoostooda hurda ayaguna wadankoodii magaaladoodii intay yimaadeen caasimadoodii guryahoodii ka soo cararay oo colaadaha iyo maaragtay masiibooyinka dabiiciga ah roobabka iyo waxaan maaragtay la dagaalanka argagixisadii al-shabaabkii deegaanada laga haysto waxay imaanayaan caasimadii waayo caasimadu waa hooyadaa lagu soo hiranaya marka aniga culayska ina haysto wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed oo aan iska warqabin inta badan oo marka qaarkood waxaad arkaysaa qof gaarigiisa mukayfka maaragtay intuu heesiisa maaragtay sameecadaha u dheeraysto iska dhaclaysanayo maba garanayaba laakiin anigu masalan usoo qaato kuwaas waxaan ku yiri xaramkaba waxaa jooga dad badan oo aan kabcada ku dukanin laakiin sacuudiga joogo islaama marka kuwaas waxaan leenahay way qalbi adag yihiinoo ilaahay aanba ka soo qaadaynin maalmihii hadda bisha Ramadaan waxaan ku dhex jirnay covid-19 iyo bishii Ramadaan iyo dadka aan ka hadlaynin annaga haween ahaan covid-19 ka maaskan soo saarnay maaskan hadda aad u jeedaan oo aan ugu talagalnay inaan u qaybino caruuraha hooyooyinka iyo dadka masaakiinta ah haweenkaas sameeyey annagaa sameynay waxaan ugu talagalnay in gabdhaha shaqaabuur aan u samayno kadibna gabadhu ay maaska ayadoo ay xirato laasigaasa lagu samaynayaa waad u jeedaa gabaraa feeraynaysa mid ayadaa tolaysa mid way u jarjaraysaa waan diyaarinaynaa dabcan waa isku tashi wax kale ma ah markii aan aragnay Chinaha laga keeno Turkiga laga keeno waan fikirnay marka haweenku mar walba hooyadu waa hal abuur hooyadu waa hanti dhowr hooyadu waa xeer ilaaliye hooyadu waa garsoorka cadaaladda ayada ah hooyada ayada macallina hooyada ayada abaabiye ah hooyada ayada hooyga naxariista ah waxaan aad ii soo jiitay barnaamijka wuxuu ku bilaabanayaa hooyo dabcan hooyo mar walba markaan eegay xayeysiintii aan dib u eegay ilaa maanta in badan aan kilibka ayaan dib ugu laalaabtay oon siri DJ Square ma qalbigaagu ka hadlaaya malaha oo hooyo oo maaragtay haddadan aad xiran tahay weliba hooyo waa wax aad aan ugu faraxsannahay inta i daawanaysa kumanaanka kuna waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in la isku naxariisto
dowladeennu waxay u baahan tahay in dadku ay fahmaan in ayagu dowlad tahay dowladdu waa number la tirin karo hadday noqoto baarlamaan hadday noqoto wasiiro hadday noqoto maamul gobol iyo stateyadaba laakiin 10 million people oo dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso oo haddana isku damqanaya oo hadduu dib dhaco isu istaagaya oo aan kala haraynin haddana kala jeeda taas waxa looga bixi karaa barnaamijyada DigiSawir uu wado oo aad ku qiimaha badan marka maamo anu waxaan fahamsanahay rabe hooyo inaan ku weydiiyo oo su'aala qurba joogta anagu ka mid nahay xaggan waxaa ku jira oo aan arkaa dadkii mas'uuliyiinta ahaa iyo dadkii magac ku lahaa bulshada Soomaalida oo shanta qaaradood adduunkaba ku sugan ase qurba joog ahaan maanta dadka magac leh oo inuu kula daawanaya maxaad kula tarin lahayd maxaanu qaban karnaa oo ciyaalka ka jigjiga jooga ka hargeysa jooga ka xamar jooga ka garoowe jooga ka gaarista jooga maxaan u qaban karnaa iyo fariin maxaa oran lahayd adduunka waxyaabaha in la siiyo oo annaga aan deeq bixiyaasha ka sugno waa fundraising waa contribution annagu aan isku darno dabcan waxaan ku talin lahaa in DigiSawir waa samafale qof walba oo Soomaali ah oo wax bixinaya in uu wax sadaqaysto oo ah sadaqa jaariya taas oo loo bixinayo ilaahay dartii dabcan ilma caruuro agoon ah ama darbi jiifa oo aan aabiyo hooyo midna lahayn haddaad ciidsiiso $10 haddaad dhiibto waa lacag £1 haddaad dhiibto waa lacag haddaad dhiibto $100 waa lacag wixii ilaahay kaa soo qaado $30 dhiib whatever waxaad awoodaba waxaan qabaa marka in lacagtaas ay dadku ururiyaan maaragtay lagu soo dhiibo adigana aad soo gaarsiisaan kuwa ugu mudan bishii waxa inoo dhiman saddex cishaa ka dhiman dabcan waxaan aaminsanahay aniga aragtidayda anigoo ah qurba joog laftirkayga oo asalba ka imid oo aan isleeyahay waxaan u ahay representative oo magaalada Muqdisho ayaanu joogaa waan ka damqadaa cidda qurba joogta marka qaarkood marka la dhaliilaayo still marka anu wali qurba joogaanahay waayo dadku waxay ku leeyihiin qurba joogtu waa sidan waxay aaminsan yihiin dad baahan oo yimid inaan nahay laakiin ma oga inaan nolol ka soo tagnay aanu nimid inaan sacrifice garayno waan ku dhimi karnaa waan ku dhaawacmi karnaa intee inooga dhimatay oo maaragtay engineer yariiso uu ka mid ahaa allah u naxariiso duqi magaalada Muqdisho cawl daahir ka mid ahaa maxaan ku dhahaa ii sheeg dad badan oo bulshada aad u qiimo ugu lahaa ayaan ku weynay waxaan marka aan leeyahay hal la dhiibo lacagta aan istaakulayno dadka qurba joogtu waa kuwa dalka samata bixiyey waa kuwa dalka wax badan ku soo celiyey waa kuwa maalin walba u taagan inay dadkooda u adeegaan marka waa laba qaybood qof uu yimaadaa xeebta liigu tagaa markuu enjoy gareeyo maalmo kadib inta pocket money-ga wato markuu xoogaa isticmaalo dabadeedna wuu flight gareeyaa dib ugu laabtaa meesha ka yimid laakiin sida DigiSawir marna bajaaj raacaya marna qof leh war aawo gudoomiye Zainab war jawaar xagee joogtaa waxaad arkaysaa iyo biyo cabitaankii macaanada soo kac oo kale inaan annagu iscaawino oon isku tashano waad aragtay dalka isxilqaan hadda magaalada Muqdisho markaa fiiriyo magaalooyinka markaad aragto dadka Soomaalida ma way isqaanaan cid aan cid garanayn male marka inta badan hadday joogto Jigjiga hadday joogto Hargeysa hadday joogto Djibouti iyo hadday joogto Gaarisa hadday joogto maxaa ku dhaa Nairobi ama Muqdisho ama maaragtay Beledweyne iyo Kismaayo hareeraheedaba waa Soomaali dadka Soomaaliyeed macna kale ma sameynayso waxaan nahay dad isla dhashay oo runtii isku qasban waan isku qasbanaa waayo waxay isku kay qasbay koow midabka diinta iyo luqadda iyo eeli xigaalo oo anagoo aan cidna qofka kale uusan waxba maaragtay uusan dheerayn maadaama marka dhalinyarada waliba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan marka aan iraahdo dhalinyaro hadda anagu waan tagnay dhalinyaro idinka iskala waqtiga waxaan qabaa marka DigiSawir wax aawadid waa wacyigelin waa heesii haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haddii sanataradii aad ka soo saartay aniga iyo hooyadii gobolka iyo halkaan iyo in badan oo daawanayso armaanta iyo isu kaaya keentay Abuukar Qaadi adaaba waxba ku dhimanayn marka aduu habeen walbaba sidaas isugu keen marka dambe ayadaa dan isku raacday habeen Hargeysa naga deji habeen la Jigjiga nagee habeen ba meel habeen garowan ka deganaynaa habeen bay dhaban tagaynaa habeen dalka ka tagaynaa war dalkan marka labaad
ilaahan kugu dhaariyay qabiil muxuu taraa qabiil qofku ma deeqo waa qoys qabiilka dhan oo lagu sheegay reer hebel waa family qoyskeena oo kala ah marka nationkan badan oo maaragtaan isleeyahay wadanka waxa ka maqan wadaniyada ay naga maqan wadaniyadu waa mid dadka barta wax lahaanshiyaha wadanka wadaniyada lagu bartaa marka burburkii 30 sano ayaan dadka loo qorin caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogta ee qaarkood xabsiyada ka soo oynayaan waxaan arkay kilib hadda gabar UK joogta ay soo dirtay leedahay Saudi Arabia dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka xiran dabcan safiira la diraya magaala loo diraya xaaskiisa caruurtu geysanaya dagala meeshaas uu fadhiyaa waa safiirkii Soomaaliya u jooga wadan hebel dan uu enjoy gareynaya waxa macnaha ma sameynayso laakiin waxa la rabaa in qofkaas uu noqdo inuu dareemo wadanka uu joogo ee Soomaaliya meel qof Soomaali adduunka aan maanta u sii joogin male waa inuu dareemo asaga wadanka ka ah asaas safiir u ah asaga siyaasadda u maqan waxa la rabaa qof walba oo magaca Soomaaliyeed sheegto hadduu u baahdo dukumeenti iyo hadduu ciqaaban yahay labadaba asaal rabaa inuu doodo waayo madaxweynuhu warqadda markuu u saxiixay ogolaashiyaha la siiyay waxa tahay safiir wadan hebel iska hurdoo saxa ma ah waxaan arkayay gabadhii la geeyay Zimbabwe miya xaawo oo wasiiradda soo ayd caafimaadka ayadoo dhalinyaradii iyo ganacsatadii iyo magaaladii la shirayso marka waxa soo jeedin lahaa halkii aan xogaa yar weecday xogaa yar aan gashanaya oo ah 30% boqolkiiba 30 markaan ku doodayno gabdhaha iyo dhalinyarada wax loo dhiibo odayaasha xogaa laga joojiyo ماما توار برقم وحكله هويا I love you وأنا أعطنا وكذا ما حد عليا سود وينتا يقرب كايس سيدا بيتان شيء ما تو thank you love you عيد مبارك عيد مبارك thank you هويا thank you I love you ما شاء الله ما شاء الله السلام ماما دمانتين ما شاء الله واو واو fantastic ماما توار برقم واو وحن leedahay dukaaga hooyo Axmed Rasta dukaaga hooyo martideedii way sii socotaa dadka ku cusub tahayna Instagram live-kayga ilaa ciidday soconaysaa ilaa ciidda aniga iyo mataan oo aan isku keenno bulshada dadka magaca ku leh daahir cali kulmiye alfatras welcome hadda waxaan soo dhaweynayaa oo ila soo dhaweynaysa a champion Sultan Hassan haddaan maqlaysid soo qabo Sultan Hassan a champion from magaalada aan deganahay iyo Tobori qaranka Sweden u ciyaara Sultan Hassan Tobori qaranka Sweden heesta calanka Sweden Sultan mana maqashaa du är dina flögebejo hey السلام عليكم أبتي ورا أبتي وقف على ما في عطاي الحمد لله سيرت حالك waanu ku fiicannahay Ramadaan mubaarak baan ka bilaabnaa aniga iyo mataankaygii Ramadaan mubaarak raasa walaalahay saantare kal yalla Sultan waxaan ku leeyahay walaalo ku soo dhawaad Instagram live-kayga oo aan wadnay intii hadda lockdown-ka iyo coronavirus ku socday ilaa ciidda aan wadi doono oo aan isku dayay inaan isku keeno ummadii Soomaalida ee magac iyo sumcad ku leh meel kasta oo ay adduunka ku joogaan from different background wadiga arkayay maama Jawahir Barqaba ka horeysay Ilhaan Umar waxaan rabaa inaan dadka ka daba geeyo Sultan distance-ka hota orodid adigu ولا وحوي من الديستانس مكا وحوي كين 1500 up to 5 متر مكا الى شنطه تكون اما شنطه كيلومتر ايان وردا مكا waxaan ku wada traga maxay aan ku warda nacam marka wada distance maxay loo baahan yahay both speed iyo maxay iyo adkaysi loo baahan yahay marka waxaan anigu aan sameyn karin hadii loo baahan yahay face distance dib bala wala waxaan u baahan business bilowdid baby steps ka bacdi wallahi ninkaaga loo waxsaak saado maxay soo cararaya diyaar inuu israaci doona waxaan rabay su'aalaha walaalo aan soo diyaariyay anigii mataan oo magaalada baa ku dhalatay iyo goorma Sweden waa u ciyaartay goorma Sweden qarankana aad ku biirtay wala anigu baadi baa ku dhashay marka maxay Sweden ku dhashay kale cidna garamaysa ka filayaa
way garanayaan Europe waa qashay Europe Europe waxay ku anigu haddaan saxsanahay waxay ku taalaa laascaano dhakeeda may walaal xatay laakiin adigu waxay gobolka tagnay budooda waa diman ودوده marka waa laakiin Sweden adigu ala kulli xal waxaan Sweden 2009kii 2009 orodkan waxaan bilaabay 2013kii summerkii 2013 marka hadda adigu 7 years almost baan wadaa alxamdulillah maxay tahay horumarkiina maxay tahay waqti buu qaadanaya moogta wixii waxaad u baantay baby steps waxa ka hadlaan cadaan ku xidhan walba 10000 hours baan wax la jira ogtahay oo waqtiga laga baahay inaad maxay tahay gelisidta u gaashto horumar marka samarkii waan hayaa maxay tahay motivationkii waan hayaa wax waan hayaa marka insha Allah dhawaan goolkii meel dhawi wali ma gaadhin hungurigana meesha ku jira ما زلت هبين دويتلو waxaan wareysanayay Bashir Abdi an Olympic runner oo Belgium matala marka oo soo ma faraxno soo socdo wiigan waxa rabay su'aasha inaan wali weydiiyo saddexdiinaba marka dhar kale la sito ama calan kale la sito maxaa dareetaan oo ama UK adoo kale kii Sweden waxa dareemaysaa walaal maxay tahay stolthead proud dareemaysaa maxay tahay inaad dadkii maxay tahay laga doortay inaad maxay tahay aad ku gashay waxaan shaqo adag maxay tahay anigu wala hadda maxay tahay maalin kasta maxay tahay waxaad ogtahay maxay tahay 20 kilomitir laga yaabaa 10 kilomitir subax laga 10 kilomitir galka dambe marka maalin kasta maxay tahay wow marka walaal maxay tahay wax aad waqti gelisay weeye waxa aad sameeyay waa dhididkaaga weeye waa xalaal weeye markii aad xulki qarankii maxay tahay lagu geliyo aad maxay tahay aad gashid waxa dareemaysaa wallahi walaal maxay tahay jawi degan weeye proud bad dareemaysaa waliba wadan walaal ku cusub tahay marka maxay tahay aad atashigi keeshid maxay tahay aad oo lagu qoro maxay laga qoro maxay tahay laga qoro aad kuwii maxay tahay dadkii wadanka maxay tahay Soomaalida maxay tahay aad wada haydeena ay ka daawan karaan maxay tifiga ay jiraad ka akhri karaan ay iyagu ma oran karaan maxay tahay waa nin Soomaaliya oo maxay tahay Sweden waqti dheer aan joogin haddana horumar keenay gaadhay dadaala marka walaal maxay tahay waxa weeye responsibility maxay tahay adigu iska saarsi meesha dadka maxay tahay aad isku qomada tihiin aad isku mid raali qorxan qof aan soo galay garamaya darkiin iyo raali ka soo ka baqanayna sheekadii dhacay joker sheekadii weeye waan ka qaateen kale aan rabay Suldaan wala inaan ku weydiiyana dhanka cusrinimada anigu waxaan xasuustaa marka DJ nimada markaan inamada ajnabiga the biggest superstar oo hip hop ka oo wadankan Sweden way jirihiin inaan la shaqeyn markaan tuulooyinkan ka tumaynay ama magaalooyinka kale aan ka tumaynay aniga laga yaabaa 2 3 4 kala ajnabi ahaa teamka saddexna cadaan bay ahayd siba naloo eegi jiray hudaalka markaan check-in aan sameynayno marka Allahumma salli ala Muhammad waxaan xasuustaa World Cup-kii aniga Diamond aanu tagnay oo Ruushka lagu ciyaarayay oo garankii Sweden oo inda gooniya ma dareentay adigu feelingaas oo kale marka ordaysid ama tababarka ama wax saasa والله anigu maxay tahay badanka markaan aan xogka qaranka ordayo ama maxay tartamo aan ku joogo Sweden ama Europe ama maxay tahay imka ama qaarad kale badankan wax ku fikiraa maxay tahay majority-ga dadku cusriin maaha majority-ga dad wanaag weeye marka dadkan cusriinta waxay attention-ka maxay tahay iyo maartay in la siiyo uma qalmaanba fahamsan marka aan dadka la kulmay badankooda wallahi cadaanka badankooda isugu ku la kulmay wanaagii ka dareemay kuwa kale maxay tahay wala khasab qof Soomaaliya ba tahay qof madow ba tahay la kulmasa laakiin walaal maxay tahay lamana eego atashkii lama siiyo inta loo eego ma laga dhaqaaqa waxa uu maxay tahay horaan soconay anigu adna halka joog wallahi kuma fikiraba niyo wadan runta ku sheego wala Sweden hadda ka hadlana Sweden Soomaalida taking over hadda yani meel aanaynu dominated aan sabab dadkii fanka ordiyaanka ciyaarta kubadda wax kasta Sweden hadda waxa haysata Soomaali taasna I'm very proud of it ya aha hero-gaagi ama qof idol ah ku dayan jirtay Cabdi Bilaal xasuusta xamar markaan wala joognay wuxuu yiri sababu ku bilaabay bad muu haysan badicid kubaddu cagtu jeclaan jiray maalmaha kamid ordiyo ma tababar ku yiri war balorad markaas uu orday aduu cid ma haysatay role model ama ku dayan jirtay
horta cabdi bile anigu de markaan wadankii joogi jiray aan yaraa maxay sheekadii dee soconta waan maqlay walba maxay la yidhi walba tv soo tagtay la yidhi maxay hooyadii la weydiiyey la yidhi in ruuya bata garamaayo la yidhi inuu talent ku yahay ay hooyadii walba kii markuu iga carrakii soo qaban jarkii mu joogaa waa mo farax kaasi iyo madax rakaas de dawlad casriyo ma maqlay laakiin saddex toban warka bilaabay marka 2012 ogtay nin ba Soomaaliya ba maxay leenta noqday Maxamed Faarax oo Ingiriis ka warta marka khasab 2012 maxay Suudama joogay waan daawanayay Olympic double Olympic time ku noqday saddex toban sanad markaan bilaabay qofkii kuray aan arkay maxay Soomaaliya meel sare gaaray waxa Maxamed Faarax iyo Mustafa Maxamed oo Suudaan orda oo isna maxay qaaradda adduunka maxay number 4 soo galay marka labada nin maxay idol marka way haayeen baryahan damana qof qaar kale la kulmay waxa kamid ah Bashiir Maxamed oo halkan interview ka qaaday oo aan Ethiopia ku kulmay tabar training camp ku kulmay marka wala Soomaalidu wallahi waa asal maxay kuwa la kulmay Maxamed Faarax Mustafa Maxamed Bashiir Cabdi Gidigood dhiirigelinta iyo maxay horumar jeclaanta Gidigood ku tusayaan waxa dareemaysaa motivation meesha marka tareenkan aad la tagtid aad la soo tababartid aad soo noqotid ay qabow tahay baraf tahay deena dabadu baxday soo dhibaato bal haba taasaan rabay inaad su-aashaas hadda kaga dhawaajisay inamadu way ku dhiirigelinayeen su-aalaan kuu soo diyaari wax weeye adigii sideebaa maxaa dhiirigelin ama dhallinyarada hadda ku daawanaysa ee rabta inay noqdaan suldaan xasanka cusub mow faraxa cusub ama bashiir cabdiga cusub ama cabdi bilabada maxaad oran lahayd oo aad kula tarin lahayd wala wax oran lahaa maxay tahay waa samir waa diiniyan samir weyn la yeesho maxay tahay Soomaali badan ayaa jirta maxay tahay rabtiin wax qabto ay wax istibarakeeyaan laakiin maxay tahay way ku daaliyaan wixii maxay tahay laga yaabaa in 3 bilood 4 bilood hal sano maxay tahay ay hard work aan caadayn sameeyaan hard to laakiin maxay tahay samirkii bay meesha ku hayn ka bacdi ku daaliyaan marka wala wax kasto fiican isku wax ku maahan fiisiintiisa u meelito boliti langartiid marka waxa laga wadaa nothing is impossible waxa impossible ka ama mahmahdii Nelson Mandela nothing is impossible until it's done marka taa waa ka qaatay marka waa samirka maxay tahay ayaa biiska waa samirka loo baahan yahay maxay tahay waa khasab qof weyn dad kale shaqada ka sameeyay laakiin walaalde weyn wax hadda sameynaysa adiga maxay tahay inta soo qof maxay isma shaqeynaysid Soomaalidu arkaysa ay ku dayn karto waa top wax abaad laga yaabaa dad marka fadhiya maxay tahay fadhiga aad kicilaysa laga yaabaa waa loo baahan yahay walaalde waa maasanto yada su'aasha ugu dambeysay oo martidoo dhan aan kaga baxo wacyigelin ama dhiirigelin aad uga tagaysid dadkan ku daawanaya wala waxaan leeyahay wallahi waa hal dadaalo maxay tahay waliba dadka wala jooga maxay tahay Yurub Soomaalidu ogtay Yurub aad iyo aad ugu badanay hadda kuwa maxay tahay Sweden jooga waxaan leeyahay wala maxay tahay wadankii anigu maxay tahay markaan tareenka ku tago waxaan arkaa Soomaali baan ka oo caan ku Afrika oo haday baac mushtar haato haday maartay shaqo sameyn haato waxaas oo dhan ka number 1 halkana waxa leeyahay maxay waxa wax rajayn doonaa in maxay tahay horumarka ka gaarno Afrika iyo wadankeena ka gaarno ay caan ku nahay inaan Yurubna ay ka keenno ay rajaynayaan marka waxa leeyahay maxay tahay wax sameeya the best ma ku noqono waxaas nacam waxaan rabaa inaan ku yiraahdo ciid mubaarak iyo Ramadaan mubaarak ba waxba ka maarsan ciidii aad baan kaaga mahad celiyay keep making us proud more success saaxiib idaa taafay wallahi waa maasantay walaalo dhimaantii ku sacab wanaagsan baad anoo ku siinana idinkuna lafta taag ما شاء الله wow what an amazing guest you ready bilan wadooda xuquuqaha haweenka motivation speaker kula soo galay yes I hope you like the program Mohammed sagal baa soo gashay Diamond Tail Ashana Zach girls who run the world girls ladies stand up bilan mana makastaa bilan soo qabo Antome waa ku arkaa سنة المرة حصل I hope
you like the program? Who run the girls? Who run the world, girls? Come on. السلام عليكم وين سلامي متان وير عليكم السلام حبيبتي عليكم السلام رمضان مبارك بلناي رمضان كريم رمضان كريم waxaan rabaa inaan ku yiraahdo ku soo dhawow Instagram-ka I hope martii ka horeysay waxa iga horeysay Ilhaan waa role modelkayga aad baan ma aragtay u salaamaya iyo maamada Muqdisho ka soo hadashay maantii waxay ka hadashay aad bay taabatay waxaan leeyahay caafimaadka ku siyaadiyo adiga maamooyinka kalaba ee sidaadoo kala dadaalaya insha Allah waxaan rajaynaynaa anaguna noqono sidii kale waan soo gaadhay waxaan rabay arrimo aan kala hadlo bilanay walaalo wata background-kaaga waxaan rabay inaad in yar aad dadka aad u tataabatid okay anigu I'm from Djibouti waxaan matalaa shanta Soomaalina waan matalaa maxaan ku raadayay waxaan kaloo leeyahay halkan happy ID me oo aad iyo aad shucuurtayda ma aragtaan soo koobi karin insha Allah waxa kale oon haddana waxaan ku noolahay Sweden masha Allah waxaan hooyo laba caruur haysata masha Allah waxa aan badiyaa intaan qurbaha yimiday wax badan baan ma aragtay waayo aragnimo weyn baan kay kolley haweenka dhanka hooyada markay gabadhu inan tahay iyo markay hooyo tahay waa different waa wax kala duwan iba markay hooyo kaligeeda tahayna way kasii duwantay marka waxaan aan u saari xooga intan dambe inaan la shaqeeyo amaba aan dadka la xiriiro hooyinka caawiya ama haweeneyda dhiban caawiya amaba waxyaalahaas waxay u kalifin in anigu aan qof walba marka sida university-ga qof walba isaga doorto ama economy ama wax kale marka laakiin anigu waxaan ku tala jiraa insha Allah inaan noqdo hooyo markaste dadka wisa insha Allah inta cimrigaygu ku dhamaan doono hooyo kasta inaysan inaan caawiyo meel kasta joogto ما شاء الله وما هسنت بيلنا ولا لبا arrimood aan rabay in yar dadka u taataabatid waxaan filayaa sanadkii horaan waxaan ka hadlayay domestic violence ayaan ka hadlayay oo ragga guryaha dumarku ku abuse gareeya ama dhanka mentally dhe ama dhanka physically dhe situation ku soo weegahay hablaheena maanta ما شاء الله ونركي DJ سوير aad baan kaaga mahad celinayaa hooyin badan salaan baan kaaga sidaa waxay yiraahdeen aad iyo aad noogu salaan hooyin badan ku soo ducaynayeen ma sha Allah ilaahay carruurtaada ku xaqtay yiraahdeen waxaad marar badan waxaad ka hadashaa aabayaasha hooyada kala tageen ee haddana anan ku oran maadsanid amaba dhibaato ugu sii dara iyadoo hooyadii kaligeed tahay oo weli carruurteedii korsanayso oo aysan maxaan ku raadayay haysan caawimaad wad ogtahay waddanka qurbahan ku noolahay subeerow hooyo kaligeed kow waxaa laga rabaa in ma aragtay ay waxbarashadeedii wadato ay dhinac ka dhiso ay dhinac ka dhasho abad hadday dhasho ilmihii lagaga tagayna inay koriso waa maskax soo koraysa waxay u baahan tahay in la shaqeeyo maskaxna soo koraysa marka maxaad hooyadaasi u baahan tahay dhinacyo badan intaniya kaga socda waxay u baahan tahay qofka kaliya ku raada hooyo fiican baa tahay waxay u beerinaysaa maxaan ku raday niyad wanaagsan dhiirigelin bay samaynaysaa exactly marka haddii lagu iraado mar walba waxay noqonaysaa dee inay niyaddu ka jirto hooyo waxa ka bixi karta uun kalsooni haysata kalsoonidu waa very muhiim masha Allah maxamed cumar waan dhageystay waxaan u malaynaa inay Soomaaliduna ay dhageysan doonto ayna ku anfici doonto kalsoonidu waa shay qaali wax kasta oo hooyo kaligeeda hooyada lala joogo maahin laakiin hooyada kaligeeda baa ani xoog ii taabata inay mar walba ay maxaan ku kalsooni buuxda haysato
without kalsooni waxba lama samayn karo horta bilan dhammaantiinba inta instagramka iga daawansa hadda iyo inta gadaal ka daawan doontaba instagramkeedu waa taa waxaa jira waxyaalo badan oo aan publicly sanaanu ka hadli karin laakiin wax badan ayay bilan ay haysaa dhanka violence oo kale oo hablo badan kusoo baroortaan ama ay u sheegtaan oo secretessna way leedahay bilan oo yani cid kale ma ogaanayso xaaladihiina xaggaas horta bilan kala xiriiraysaan dhanka abuse-ka maskaxdana horta tan gacanta waaba oo tan maskaxda teebaa daran horta labada horta subeero abuse-ka daran abuse waxa weeyaan qof nafta ina lagaa qaado oo xabad lagu dhufto hal mar bay kaa baxaysaa laakiin haddii meel walba midi lagaa geliyo maxaa dareemaysaa marka abuse waxa weeyaan example baan kusoo qaadanayaa noonan qofna magacaabin hooyo reerkeedii ku jirta oo caruur haysata oo shaqo tegaysa ama iskuul dhiganaysa wadanadan waad ogtahay af gooniyaan ugu iman aynu baranaynaa dadkuna masha allah sida adigoo kale dhalinyar kale kumay dhalan sida caruurteedoo kale maahin iyo kowaaweyn baan imanay sida anoo kale marka waxaa lagu baahan yahay inaad waddan kala jaan qaadid ood hore u socotid okay aabihii guriga kula deganaa gabadha odageyga maxaa markaa hadduu maalin walba uu til example caruurtii bay korsanaysaa uu iska shaqo tegayaa uu imanayaa hooyadii abuse waxa weeyaan maaha in dilmadan kelmado qaarkood oo lagu tuuro oo hooyada dhaawacaysa qof yahay sidani qof yahay kani waa dareemi karaa anoona social media ka odhan marka hooyadaasi waxay dareemaysaa hameenkii markay seexanayso maskaxdeedii maalintii dambe sida ubadka u korinayso demoor hooyadu ay niyad fiican haysato ubadkay ka soo baxda ee quruxdooda iyo mortality bilan intay u walaal waan ka helay you more hooyadu ay haysato qalbiga you more ay hooyadu haysato naam yaro xalka aabaha ama isla joogana akala iyaga kuwa isla jooga hooyadaasi ilmaheegu si fiican buu u koraya the more ay haysato wax niyadda u dhisa the more ilmaheegu ilmaha kale uu ka duway isku mid maaha waxa weeyaan hooyada qaarkood waxaa jirta aanan u baahnayn waxay martaa sirkala adag dariiqyo adag uma joojiso waxaa kalsooni bay haysataa waxay leedahay xaggaasaad gaadhaysa you must inaad xaggaa gaadhid taasi iyadu waxay haysataa kalsooniduna waa haybad ilaahay baa bixi marka intaanan haysanna waxay ku heli karaan waad ogtahay waddanka psychology baa jira laakiin gabar waddankan ku kortay ama waddankeeda wax kusoo baratay psychologiga way la xiriiraysaa docteerka way la xiriiraysaa su'aalo badan bay weydiinaysaa laakiin haddiinan haysan experience-ka ay soomaaliya ka timiday from lagu keenay ethiopia response toos loo keenay waxba kama qaban karto psychology ma oga maybe dadka u dhowi ma afgaranayaan oo siraheygii bay ka qarsanaysaa familiga wixii gudaha ku jiray ma rabto in la ogaado marka ayadaas ku dhex qarxaysa maxay keenaysaa ama ina ubadkii laga qaato amaba ina la eego hooyo doqoni ma jirto waxaan aaminsanahay hooyo doqoni inaysan jirin hooyo kasta waa fariid laakiin dhaqaalaha iyo maskaxda reer waxaad arkaysaa buula yar yar ku jira oo faraxsan waay odageyga niyadda u dhisaya ciyaalkii la kaftamaya uma oga tadaar ku jirta marka waxa weeyaan very muhiim ilaahay waxaan ka barayaa inay aabbayaashu ogaadaan ay inamadu ogaadaan weliba kubilada cusub ay isguursaday iyo dadka cusub inay ku dadaalaan maasha allah adiguna si fiican baa snapchatkaaga maalin waxaan ka daawanayaa tiri bal thank you dhaha sms u dira ex wifekii xasuusta ciyaal bay nii haysaa meel kastaad iska martiin waad shaqaysiin marka taana aad baan ugu farxay way fiican tahay taasaan rabay inaan maxaa lahdaa aan tixraaco hadda waatano riisanada iyo sababaha aan kaa codsaday inaan nagala soo qayb geshid waa platform weyn oo daawanayso xaggan waxaa ku jira asxaabtay oo magac bulshada ku leh rag iyo dumarba ay ku jiraan iyagoo kale iyo anigu maxaanu qaban karnaa sidii aanay tobicani aanay tabu ahaan ilan waa saa kaga dhawaajisay inantiyadii baa dhexdii isku qarxaysa markay kalsooni ay weydo ama asxaab good friends labo
waa taboo domestic violence saddex waa taboo mentally violent sexual abuse waa taboo maxaad aad aniga intan magac leh ee 100,000 oo taageero haysta maxaanu gudbinaa maxaanu naqnaa maxaa oran lahayd mid baan iloobay qaybta kufsiga gabadh yar baa jirta oo 2 gabdhood baa jira oo yar yar 3 jir iyo 4 jir afgooye ka dhacay nacam waa la soconataa yes markaa run ahaantii markaad dareentid aabbaad tahay haddaanad aabba ahayn ood weli waxba dhalina waa dareemi kartaa sax sidee dareemayaan hooyada ayaa aabbaha ilmaha dha waa arrin laga qiro wax kasta waan isdhaadhaafin haddaan soomaali nahay laakiin waxaan odhan lahaa dhalinyar badan oo maskax fiican ku jirto oo naga maskax fiican adduunku isku dheeli tiran yahay marka wax la isku darsadaa heer la gaara marka waxaan odhan lahaa anigoo halkaa joogaa ka qiirooday inaan lambarkii raadiyo inaan waco la xidhiidho inaan dad kale waco waxay noqonaysaa shaqo dheer laakiin haddii 5 muqdisho joogta 5 hargeysa joogta somaliland 5 jabuuti joogta bulacley afgooye 5 isla shaqayn la sameeyo group la sameeyo waxaa laga yaabaa ilmaha xanuunsan xitaa inaan soo qaadi karno response loo samayn karo ama la badbaadin karo waxaan lahaa haynu wada shaqayno ma ahayn inuu qof markuu meel soo dhigo facebooka la qiiroodo oo la ooyo oo la idhaahdo balaani wax isku dardarno ma ahayn laakiin wada shaqayntu markaaba wax weyn baynu qabanaynaa saadaynu isku qabno taas waxaan ku leeyahay bilane walaalo aniga subeer ahaantayda you my hero aniga hero baa ii tahay role model inaad dad kunamanka qof la soo hor fadhiisto topic adag laakiin aniga qasab bay ugu ahayd inaan soo bandhigo oo mar oo I hate in wax kasta Soomaalideena aynu tabu ay ka wala dhigno marka hootay waxa ilaahay ajra ka siiyo bilana dhamaantiinba barta Instagram-keeda originalka waa ka kala xiriir walaashay waxaan ku leeyahay Ramadaan mubaarak iyo Ciid mubaarak I love you bilan adiga mataan shaqada qabatiin aad baan inigu mahad celinayaa ma sha Allah adaa mudan walaalo ayo walaal thank you adaa mudan walaalo wow wow girls girls who run the world girls Abukar Awale Qadid coming up girls who run the world girls Abukar Awale hadana maqashid أفكر عوالة إيه أفكر عوالة أحسن وقابلني بنحسن السلام عليكم عليكم السلام أفكر أنا صاحبك مطان صاحبك مطان وسلامي أصحاب صدنا وسلامي يا ميلاد جوكتمبر رمضان مبارك سومالي وين waxaan rabta marka hore ku bilaabayaa inaan ku mahadceliyo DJ Subeer what a platform what an amazing achievement in codkaagu within week gudihiisa uu gaaro over 1 million people waa inaan ka fakarnaa runtii sidii aan opportunity-gan loo neutralize garayn lahaa maaragta وأبا كاجم هاد عين لكن عيد يقولوا بسهمك عيد لا you have to keep going brother you can change صواري ربما بدل كرتا حتى سان قوة إن شاء الله أذان كاجم هاد عين ليا رمضان مبارك نصاحب وحربي ضدك بالشوين تهرتا ويكول يقانا مالك جيس كستاي كان عاوف فرصتنا حقا وي وحربي وطينا كبلو دنك awareness ka COVID-19 iyo dadka Soomaalida inay guryahooda joogaan oo dadkii waalidkeena aynu ilaalino
absolutely marka hore horta waxaan salaamayaa asxaabtii igu horreysay maasha allah koofiyada kala duwan wata ilhaan cumar ugu horeyso walaashay jawaahir oo ahayd qaadiid halkan markay joogtana taageerayaasha ugu waaweyn ahayd east london muqdisho markaan tagana mar walba garab naga garab taagan walaalkayga sportska bilan maasha allah waa masiibo weyn oo adduunka soo food saartay waxaan oran karaa talooyinka dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladda ha loo hoggaansamo qof walba mas-uuliyad shakhsiyan ha iska saaro inuusan naftiisana protect gareeyo asagana uusan noqon carrier dadka u gudbiya oo uu gacmihiisa dhaqdo oo maskigiisa xirto oo uu iska ilaaliyo meelaha khatarta lagu sheegay runtii haddii la fiiriyo awooddeenna soomaali macnaha national health servicekeena iyo siduu uu yahay weliba waxaa nagu sii waajibaysa inaan taxadar extra ah adduunku intuu taxadaraya labalaabkeed inaan sii taxadarno waana rabadaan tobanka u dambaysaa lagu jiraa ana ka ducaysano insha allah in ilaahay cudurkaas amiin waxaan rabay su'aalaha aan soo diyaarsaday saaxiibkaan u soo diyaarsaday ta koowaad waay shaqadan qaadka inaad mamnuucdid waay shaqadan inaad qaadkii ka soo horjeesatay waay aad maamada laamiga ku iibinaysa qaadka ama dee kolliyada shaqa aad ka xidhay sida indhaha qofkii negative ku arko horta waay aa afraha u gashay horta kow waay qaadiid yani qaadku waa wax jira dhib waxa lahaado laakiin waay miin waa su'aal fiican waa anigu waxaan aaminsanahay qaadku subax saan u joogo inta ku soo furkaray kuma dagaalin qaadku isagaa dagaalku ugu bilaabay anaa soo cunay anigu 7 years of my life qaatay anigaa xanuunkiisii dareemay anigaa ku sigtay inuu qoyskaygu ku dumo marka ilaahay xamdiga haddii ilaahay iga madoobeeyey waxaan istusay niyahow ma noloshaada iska raacataa alxamdulilah inta dhahdaa iska baxdaa goocidii ku jirta iyaday u taallaa miyaa dhahdaa mise xun baad ka dhahdaa xataa waxay ugu soo dhacday waagaas ma ka gabaydaa laakiin unfortunately gabayga ma aqaan marka ololuhu wuxuu ku bilaabmay waa jab anigu aan soo maray oo aan uga digayo wiilka yarkaaya soo socdo ilkaha cadcad inaan dhaho adeer please godka anaa hadda ka hor ku dhacay iska jir qaadiidka dhan waa intaas arrinta hooyooyinka waa very serious question yes way jiraan hooyooyin ku nool yes way jiraan hooyooyin agoon korsada kuwa iskuulaad ka bixiya laakiin waxaa jira hooyooyin kale oo aanan arkin oo ilmadu ka dareerayso waxaan oran karaa halka hooyo oo qaadka gadaahi waxay qadisaa oo biilkeeda ka soo qaadataa 10 hooyo kale oo aan qaad gadin laakiin ninkoodu qaadku cuno ninkaasaa soo qaada hooyadaana biilka loo keenaa hooyadana way survive garoobaysaa laakiin 10 hooyo oo kale ayaa victim ah marka mar walba haddii la isbarbar dhigo inta hooyo faa'iidaysa iyo inta hooyo dhibaatadu gaarayso waxaa badan inta dhibaatadu gaarayso taasaana mudan in loo korodo oo lagala hadlo waan ku qancay haddii hal hooyo ay qadayso 10 hooyaa badbaadaysaa yes 10ka hooyo markaa badbaadaysaa ma dhaqaale ahaan bay badbaadayaan ma caafimaad ahaan bay badbaadinaysaa ninkeedii ma ilmihii bay caafimaada ma isagiiba caafimaadkiisa ma iyadiiba waa 10kaas hooyo oo ninkoodu qaadka cuno waxaa khatar ku jira carruurtoodii oo biila waxaa ku jira ninkeeda caafimaadkiisii waxaa ku jirta iyada laftigeeda hooyada laftigeeda oo domestic violencega hadda aan ka hadlaynay ay ku imaan karto iyo reerka inuu ku dumo waxaa kaloo oo mudan kelmadda caanka ah oo loo bixiyey waa in la eegaa hooyadan laftigeeda qaadka gadaysa waa inaan eegnaa waa maxay sababta keentay inay kabarka soo fariisto hooyo soomaaliyeed ma la oran karaaba hooyadanba waxaa kabarka keenay because ninkeedii baa qaad cuna marka solutionku aan raadinaynahay ma noqon karo inaan dhibaatada lafteeda dhahno war wixii dhibaatada keena aan ku daaweyno hooyadu ha gadee daaya because dhibkuba asalkiisii qaadka ayuu ka yimid marka dhinac walba haddii loo fiiriyo waxaa roon in xalka loo raadiyo hooyooyinkaas marka xaq waxay u leeyihiin inay carruurtooda korsadaan waana midda aan hadda aan dhiirigelinayna inay khudaarta gadaan inay dharka baatiga gadaan inay sambuuska iyo bajiyaha iyo kackaca gadaan another alternative weliba lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo
baan mushkaraynayna insha allah dhanka dhaqaalaha maalin dhowtole posta soo dhigtay facebooka anigu subar ahaanta aad aan u taageero waxaa tustay waxaa lahdaa swak to bit bay suushkeedan black and white yani caddayn caadiya yani inta malaa'iin dhul soomaaliyeed ka baxda iyo aanan wax ku bedelin intaasaan rabay inaad aad ka daba geysid dadka horta unfortunately I don't have boogie qaadid hadda ima hor yaallo laakiin on top of my head waxaa la yidhaahdaa koonfurta keliya oo aysan weliba ku jirin kismaayo iyo inta kenya u dhow oo baabuurtu keento qaadka diyaaradaha keliyaan ka hadlayaa oo kenya ka yimaada waxaa lagu qiyaasaa 780 milyan sanadkii now haddaad fiirisid 780 million pound waxay ka badan tahay miisaaniyadda dowladda federaalka Somali government annual budget waxaa ka badan inta aan qaad ku gadan marka diyaaradda hadda bakro saaxiib waa intii diyaarad u baxda waa diyaaradaha keliya waa another statistics in Somaliland qaadka Ethiopia ka soo gala waa another statistics qaadka ka soo gala Jubaland iyo Soonaas xadka Kenya u dhow oo dhan mid baa badda ka soo gala waa nooc kale laakiin waxaan ka hadlayaa diyaaradaha yimaada magaalooyinka Muqdisho Gaalkacyo Qardho Boosaaso Badhan Buuhoole Cadaado Dhuusamareeb so many cities kaas flight directly from Nairobi ka soo duula subax walba marka amountiga ay keenaan marka lagu dhufto 450 oo jawaan qiimihiisa waa over 780 million dollars imagine adigu DJ Subar iyo daawadayaasha hadda waxa weydiinaya bal imagine lacagtaas inta warshadood aan sanad walba ku dhisan karno sida saxda loo isticmaalo waxyaalaha la yaabka waxa kamid ah hadda coronavirus xilligan uu jiro inkastoo dee adduunyadii oo dhanba ka cabanaysa dhaqaale xumo waxyaalaha ay ka cabanayso oo dhahaysa maxkamad ma tegi karno dhaqaale xumaa ka mid dhaqaale xumidaas soo food saartay waxaa ka mid ah lacagtii doolarka oo caddaanka oo kaashka oo maalin walba Soomaaliya ka qaadan jirtay marka waa dhaqaaliyan wuxuu fariisinayaa dhaqaalaha keliya ma aha muruqii dhallinyaradii shaqayn lahaa productive noqon lahaa wuxuu saameynayaa maskaxdii fikri lahayd waa qaylaysaa marka in every aspect dhinac walba oo laga fiiriyo qaadka waa in xal loo helaa waay taa aad baan kaaga mahad celiyay qaadka substanka ama maxaa ku jira ee addicted noqonaya hadda sigaarkoo kale de waa nikotiinka maxaa ku jira qaadkan horta ee addicted ka dhigay rag iyo dumarba dee labada maado oo qaadka ku jira waxaa la yidhahdaa caffeine iyo cathinone caffeine iyo cathinone waana addictive waxyaalaha ay ku fiican yihiin waxa weeye qaadka hadduu baarixi noqdo Soomaalidu waxay dhahdaan qaadka hadduu maalin jiro kishalay oo kale war waa baarixi waxaa lagu leeyahay caffeine life long keeda baa wax yaroo gaaban that's why gaariga qaadka wada uu orto that's why qaadka diyaarad loo saaro that's why wax walba loo dedejinayo waa caffeinekaasi inuusan ka bixin caleenta gudaheeda marka waxa addictive-ka ahi waa kaas waana waxyaalaha uu scientifically anigu dhakhtar ma ahay laakiin intaan akhriyey waxyaalaha uu keeno waxaa ka mid ah liver disease buu keenaa afka qofka kansar uga dhaco paranoid iyo psychosis iyo qofka self esteemkiisii iyo nadaafadiisii iyo wixii oo dhan baaba'ah oo asagii isu qaato and I'm talking about myself anigaa soo maray qofku hadduu qaadku la dego dad waxaa jira medium users oo qaadka once a week ku baashaala oo controla laakiin real heavy usersku qaadku wuxuu saameynayaa caafimaadkooda nadaafadooda self esteem confidence-gooda qofka kalsoonidu hadday ka dhuntana waa finish waa done waan kaa qaatay taasna iyo situationka dhulkii hooyo maanta Djibouti bay iga soo bilow soo soco Hargeysa Garowe xamar Kismaayo sheediyahoo dhan ba ama liiskoo dhan situation waxa ugu maraya wayna karano qaadka wada gubaya maanta ma waxa loo gubayaa coronavirus darteed mise dhan political ba loo gubaya horta qaadka unfortunately horta wixii la gubaya waa dhamaadeen Somaliland way fasaxday Puntland way fasaxday koonfurtii iyo diyaaradihii unbaa hadda xiran waxa loo gubaya waxay ahayd coronavirus laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaadka laftiisa coronavirus yani Soomaalidu waxay qaadka u gubaysay bahalkan uusan cudur loo keenin naga guba laakiin caqliyan asaga laftigiisa cudur because cutting iyo catalogue waxa ka daran
pesticide-ka lagu buufiyo DBT-da magicii waxa lagu buufiyo pesticide baa la dhahaa waa sun la dagaalanta ayaxa iyo cayayaanka iyo inay fuulaan qaadka Soomaali arag mar walba inuu shaynayo oo dhalaalayo sidii wax la luujitay waxa ku xidhanta meesha lagu cunayo agla kaftay go ahead marka pesticide-kaas lagu buufinayay iyo asagii oo asalkiisi kaateen iyo ka tanona anagu fikriyan waxaan aaminsanahay hadday Soomaali qaad u gubaysay coronavirus uusan soo gelin qaadka laftigiisa ayaa khatarta coronavirus wata because hadda intii cudurkan socday inta qof oo u dhimatay haddii la fiiriyo iyo haddii la fiiriyo intii ka horeysa cudurkan iman inta qof ee qaad u dhimatay awgiis ama beer ku baaba'ay ama silic kale u dhintay waxaa badan baa la oran karaa inta qaad ku dhimatay marka sidiisuuba mudan yahayba waa ka qaatataa iyo su'aashii ugu dambeysay saaxiib waqtigaaga marba inaan sii qaato suxuurtiiba loo wala cararaya maxaad kula talin lahayd hadda bulshada kugu jirta hadda ee ku daawanaysa from top to bottom ban almost aan lahaynaa yani dadka kala duwan ee ku daawanaya fariinteeba uga tegi lahayd saaxiib waxaan oran lahaa ingiriisku waxay dhahaan be the change you want subeer hadda waxa uu samaynayo bulshu rabaa inuu wax ka bedelo anigu waxa aan sameeyey bulsho wax aan dhibsaday oo anigu aan soo maray baan go'aansadnay inaan wax ka bedelo adiga i daawanaya Soomaaliya waa wada challenge pick up your challenge Soomaaliya waa wada challenge pick up your challenge dhan caqabadaha jira badan marka challenge-yada mid ku dheg oo ku mintay oo isku day isbedelka aad rabtid inuu dalkaagu noqdo inaad adigu doorkaaga qaado meel walba aad joogtid iyo wax walba ay tahay hal tusaale aan idin siinaya wiil yar oo Soomaaliya baa wuxuu arkay cudurka coronavirus oo la leeyahay oxygen ma haysano maskigii waa naga dhamaaday waad aragteen hadda gabdhihii baa samaynaya wiil yar oo Soomaaliya sameeyey oxygen-ka lagu neefsanayay marka waa real change maker wey marka qof walba waxaan oran lahaa isu xilsaa cirbadna Allah ka dhigay Soomaaliya aad ku tagtid maanta waxaan ku leeyahay saaxiib sharaf bay yahay wata caawa inaan xasan ku kulanno abubakar cawaale waa ka instagramkiisa madaxayga waanu ku samaystay caawa sharaf korkaaga Allah ha noqdo masha Allah ciid mubaarak saaxiib oo dhulkii balantiina waan oofinayaa burco weyn wala tegaynaa labadeena definitely ani adiga iyo burco I love you brother love you brother take care wow labaatan qof ayaa Instagram madaxayna ku furotay si uu la soo qayb barnaamijyadan all of you waxaan rabaa laba guest inaan soo qabto horta abwaan Jelani haday maqlaysid abwaan Jelani iyo Saquni ninka ka dambeeya fiidiyoyada iyo xayeysiisada armaanta coming up abwaan Jelani mana maqashaa abwaan Jelani حاجة وحنا هذه هذا السلام يا سور محمود هذه هذا بكون سلامات معان أبوان Jelani إيو سقوني هلا هرتا سقوني وان هلا What a beautiful program سلام صاحب ونوغينا شقده كجرتي لكن waxaan rabay in aan xaggan aan taaro soo sameeyo walaalka qaaliga Saquni wajigaaga ma arki karnaa waka oo ma santa Saquni waa reer Edmonton Canada waa ninka ka dambeeya fiidiyoyada xayeysiiska aragtaan oo dhan website hadaa rabtaan fiidiyoyada xayeysiisaha flyer cod ku qabtaa legend shaqo badan baan ka noo hayaa marka Saquni waa ka Instagram-kiisa Saquni waxa ku leeyahay Ramadaan mubaarak adiga makan wa salaamaya aad baan kaaga mahad celinay saaxiib aad baan kaaga mahad celinay sidoo kale waa idin mahad celinaya dhamaantiin
وقت كلام يسوق وتاسع ciao 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 لا انا كنت فاهمها armata ابو سلام هذا مخلص عبد الرحمن مانا بيشرح حق الجوب فيلز حسن اسيب هون ها ها هي هي ها 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 waxaan dhisuyaa lejanka bataa waraaqiisa I love you, brother. Da 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 da. Ha ha. waxaan leeyahay saaxiibkii armaan text baan xaggan yes armaanta maalinkan soo cusubaya waxaan rabay inaan horta aad iyo aad aan u mahad celino martida wara wow imagine guys 82 83 people or adduunko dhan jooga different category different background ayaa live Instagram kan ka daawateen in less than 20 days ma hadda ilaahay ba iska leh amaantana waxa leh yaga martida asxaabtay walaalahay iyo idinka oo waxba kasta nagu xidhan sharaf korkiina ha ahaato matano meeday listii Brittle asxaabtay